waxaan ku iri aniga international conference-ga waxay Soomaaliya la mid tahay kalluumaysatada yaanyuur ama kulaal ama bisad qof walba sida u yaqaano qofkii guri ku xirta ee baabka u xirta yiraahda iyadoo mugdi ah balaaniya adiga marka wax naga dhaxaya saarano inay xagataa Soomaaliya dhibaato kaliya aan gaarsiinin laakiin inay caroodaan oo ay dhibaatada maanta jirta ay timaado waxay adduunyada ka laftay haddii ay kalluumaysatada Soomaaliyeed xuquuqda ay leeyihiin badooda ku leeyihiin laga kaalmeyn lahaa la siin lahaa loo deyn lahaa inay waxda kalluumaystaan ayaan badooda laga xaalufin lahayn oo badooda laga sameyn lahayn caradan maanta keentay inay mataqaanaa ay mucaaradeen noqdaan ma dhacdeen laakiin ma ayna caradan ku gaarsiiso ina dad innocent ah ama passage maraakiib loogu talagalay ee ganacsatay inay mataqaan jidkaas marto oo baddaas weyna Soomaaliyeed caamka ku ah inay isku xirto mataqaanaa bariga iyo bartamaha iyo galbeedka adduunka isku xirto ina adigu u istaagto tiraahdo hadaa lacag laga siin go'o gashmale dana ay jabsan waa mamnuuc waa xaraam wax ku haboon maaha mataqaanaa sumcadda iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed oo wax laga hortagay oo wax loola dagaalamayo oo wax anaga dowlad ahaan Soomaaliyeed aanu leenahay to the maximum condolence to the maximum condemnation ayaanu siinayna runtii waa wax oo aad looga xumaado wax aad mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed sharafteeda iyo haybadeeda iyo mataqaanaa qadarinteeda meel looga dhacay way dhalinyarada haddii caroodeen ay leeyihiin kalluunka iyaga mataqaanaa naloo diiday darteed ayaan mataqaanaa usoo qabanayna soo qabta kuwa sidii sharci darro u kalluumaysanaya ma laakiin markab ganacsi wada iyo markab saliid wada iyo markab mataqaanaa dariiqa Seychelles laga soo qabanayo ama Madagascar laga soo qabanayo ama Zanzibar laga soo qabanayo ma in badda Soomaaliyeed loogu ciiltirayo waa dambi waa crime waa criminal dadka noocaas oo kaleeta waxa ay sameynayaan dowladda Soomaaliyeedna way ka go'an tahay inay tilaabada ugu haboon ka qaadayso marka ciidamadan uu madaxweynaha ku dhawaaqay ilaalinta xeebaha badda ee runtii booliisinka ay samayso runtiina waxay kulli toos imaan doonaan inta badan wasaaradda shaqada kula arrimaha amniga iyo mataqaanaa wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda iyo wasaaradda gaadiidka mataqaanaa badda iyo mataqaanaa dekedaha iyo intaas oo dhan waa isla kaashanayna under the leadership of the prime minister mataqaanaa waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala annagoo isku wada duuban oo gacmaha ay saysano annaga iyo ciidamadayada inaan barnaamijkan sida dhulkana ka bilowno baddana ka bilowno kaalmo fiican oo runtii shalay waxayna geeyeen shirkadda ugu weyn ee samaysa maraakiibta ciidamada iyo maraakiibta looga hortago burcadbadeedka runtii aniga waxaan ku siinayaa kolley tacajilka nabadtusaan ku siinayaa aad baan ugu qarxay waad ogta hormuusyada meelaha khooriyaasha adduunka hadda burcadbadeedka ay ka dhacdo tan Soomaaliya hadda waa tan yare Hong Konga ugu badan markii ay wacal waayeen dalkan Denmark Netherland ee ka kaalmay waxaana runtii ay gateen doomahan dheereeya ee la yiraahdo rocket boats oo meel kasta ay joogaan ayagoo ay arkeen ugu tagayeen runtiina boqolkii 80 burcadbadeedka ka jirtay khoorigaas yareeyay aad u baabiyay annagana waxaan rajaynaa insha Allah tacaala annagoo la kaashanayna saaxiibadayada runtii waxaa shirkad kale oo annaga hadda shalay wasaaradda ay nagu wareejisay oo meelaha naga geynayso nagu wareejinaysay oo horeen ula shaqeyn jirtay dowladdii Allah naxariistay maxay saad barre dekada Muqdishona qalabka looga shaqeyn jiro dhan dayman wax kala ah film wanaagsan oo consultancy ah wanaagsan annaga uma aanan inaan ka hadalno kheyraadka badda naga waxa u nimid bal sida ugu horeyso oo burcadbadeedda dhibaatada ka taagan wax looga qaban lahaa waayo hadda annaga dee laba waran baan ugu surano waranka salka iga taagan iga bixi kan isha aan marka adhooti bal u tashaday haddii bal burcadbadeedka marka hore aan ka takhalusno ayaanu ka hadli karnaa yaa ka kalluumaysan kara Soomaaliya see loogu kalluumaysan karaa muxuu kalluunka noqonaya ilaa uu budla xaalufiyo u baahan nafteeda inay nasato oo nasasho la siiyo oo marka waqti oo grass period ah oo ay ku nasato oo kunta ku soo dhasho kalluun ku soo noqdo inaanu sameeyno ayaan kulli ku tala jiraa haddii la ka noqdo mar hadda maanta loo fasaxi karo in la kalluumaysto aan ka ahayn kalluumaystada Soomaaliyeed معها بكي مكان هذا أريد ريفو قريناي أما أن بابينا يشروع متقانا للشنسياشة أما شتيجا لو كانوا يستوي هاي بدي بقى أبها مسش بدنا بدل جود ينكر معها مراكب متقانا كانوا يستوي أرون نحيل مثل كذا مركب كستو بدي جلايو وإن يساريه إذا كمتقانا إلى هذا حياته قف كصعدة وين سعره قف منطقة وزارة كروبيسي كصعدة وين سعره قف ريفينيو كصعدة وزارة المالية ورنتي الدريالك بدأ يدريالك دقائق ذلك سوق جاي إلى أنت منطقة environment ecology حيوان صومالي كل كم تكلاي سعره أساسا هاجسي منطقة وزارة كروبيسي خلاص بدأ يود محاسب برا أنت كده بس بدأ تدك يدلك يدينته ولا حاله فيه وحلا ضعفي ما وتاع أركيسي كتابك الله هذا متقنا بحال كجران هذا إلى أيسي برلمان يقولون وزير كل أمرنا الله وسيدنا ما سيد وحلو دقائق سيد أي تاي
أنه متقنا إلهي سبحانه وتعالى واجب النصارى إلى لنا متقنا نظامك الشرعي إلى وحنا فريقنا نصمين qofkii aan taqrabi daryeelina tiis ilaahay ma daryeelay marka waxaan qabnaa in hadaan ummadda Soomaaliyeed marka hore aan qabsano xarig ilaahay daryeel lama taqaan wax alla wuxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala na faray kadib ilaahay subhanahu wa ta'ala karabada noqon waan faray xasan nasr marka laga soo tago kulamada aad ugu sheekaysay hadda oo aad la yeelatay madax ka socotay wadamada Denmark iyo Netherlands wadankii Soomaaliya hadii aan u laabano bariyahan waxa socday wada hadallo ay dawladda Soomaaliya la yeelanayso mucaaradka ka soo horjeeda gaar ahaan Xisbul Islaam wada hadalladaas sidee ay ku bilowdeen masal laga yaabaa qolyooyin kale mucaaradka sida xisbiga kale leeyahay shabaab iyo wixii kale ka soo horjeeda dawladda in sidaas oo kale aad wada hadal la yeelanaysaan horta aad baan ugu faraxsanahay horena markaan aniga ku sibaaray wasaaraha waa ka sheegay markii baarlamaanka aanu geeninay shariicada islaamka xisbul islaam hogaankiisa sare maxamed Saamay iyo Yusuf Indacade labadaba amaan balaaran ay horta baarlamaanka soo jeediyay xubnaha golaha wasiirada way ogyihiin arrimaha nabadeynta iyo socodka xaaladda nabadeynta madaxweynaha wuxuu irsaaray ra'iisul wasaaraha iyo xubno khaas oo golaha wasiirada ka tirsan wasiirna way leedahay oo arrimaha dib u heshiisiinta loo xilsaaray arinta dhilinteedana guddi khaas ah ee wasaaraha kala tashtaa oo mataqaana isla maareeyaan waxaan maqlaysoo bilyan ogeed in Sheekh Yusuf iyo Maxamed Xasan Amiba iyo guddigooda sare ee runtii Xisbul Islaam ugu firfircoon shahada Xisbul Islaam oo hal qolada ugu muhiimsan waa mataqaana qolada Xasan Ami iyo Yusuf Indacade waxay la kulmeen madaxweyne Sheekh Sariif waxay la kulmeen prime ministerka waxay la kulmeen xubno golaha wasiirada oo muhiim ah iyo baarlamaankaba runtii waxay kullu sheegeen inay dawladdu tahay maadaama sharciga islaamka lagu dhaqaayo dalkina uu dal islaam yahay xeerka islaamka uu qaatay marka runtii waa dad mabda leh dad waxa weeye qowl iyo sharaf leh laguna yaqaan runtii intii aan maxkamadaha anaga bariga aan soo shaqeyn jirnay kamid ah dadkii aad soo halgamay halgankoodii mataqaana sharafta lahaana ku dhameystiray inay taageeraan madaxweynaha halgankaas aabaha uu ahaa Sheekh Ahmed oo runtii ahaa mataqaana ninkii wax ka aasaasay ama aasaasayba foundationkii Islamic Course of Unionka ah marka waa aaminsanahay in ay yihiin dad runtii mabda wanaagsan leh aan aaminsanahay in lagu daydo ay mataqaana aqoon tahay ku dayashadana runtii marka qaarkood xaraan ma waxa aniga rabaa la kacaw in dadkii dhageysanaya u sheego qof kale mataqaana baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo dhamaan waa ka doobeen ama waa dad xaraan oo wax lagu darsado ma meel bay uga dhacayaan anaga sunnada rasuulka kaleey salaatu salaam ayaan ku soconaa kitaabka Allah iyo sunnadiisana waajibna saaraa inaanu qaadano wax kasta wax lagu daydana waxa ugu khayr badan waxa weeye إن النبي عليه الصلاة والسلام أكون ديتي قلت النبي أحد حكوا لك على خالد بن الوليد خالد بن الوليد نوها نو البؤس ومعنى مات الميز أم محضرة أم وجعلها إلى أولاد أم محضرة وتقرأ كتر متقانا دورك الشريف كأمة صلاة السوقاتي حتى ترى هذا الشرعي قف كان وضع الدرب السرين هدي وناجي متقانا شرفتي هيبتي ومدة إلى هذه الدين إلى هذه دلك وكانكي أبونا سنة الدين تورنتي ومدة متقانا وحنا كسر بري وحنا كسر وري وما إلهي حكم كل يوم وهاد إن متقانا قف البؤي هذا حتى ما تنه جامنس سيد إلهي يدس القرآن كي يرجع الله ويرجع الرسول وأولي الأمر أولي الأمر كده ما تقدر نقول رسول الشيخ شريف الراعي لها بالقارة له أنا ما قرني حتى السياسيين المركز أنا عن قضاء إن أندينت للسياسة دينهم أو سياسة لغيرهم هذه السياسة دينهم حين قرصها هذا الكيها عدي وكعوري أما كعيدي مركز تاس مركز دين ما قف إنه شيء في عروي هذا وروح أنا ربع أنا ربع سي أقرب مع ليلي أنا وده ليلي سي نقرص عركنا مركز دين تمجلي كرتو ضد إيه سياسة إيه مرن إيه بنك شيء مرة مجلي كرتو